kusoo dhawaada maadadeenii farqurxinta laatiinka noocii saddexaad ee italic 3 casharkii 18aad casharka kan 18aad waxaan ku qaadan doonaa shuruuc uu leeyahay italic 3 in guda galna casharkeena shuruucda waa 3 midda koowaad labadii lilaahiya lama loodin karo labo aan eegno Soomaaliyey sharciga saddexaad yaxaas baa yiri intaan yaabay baan yuumbaday jumladii the quick brown focus jambis over the lazy duck xeerarka kan waa ilaa 3 xeer. xeerka koowaad waa xarafka L waana xarafka ugu dhib badan maxaa yeelay meel looga qiyaas qaato ma lahan kaliya waxaa fiirinaysaa meelaha dhexe ayaa ka qiyaas qaadanaysaa meeshaas oo kale xarafka E hadda aan ku aadiyey inta ka dambeysana xarafka E ayaa kaga qiyaas qaadanaysaa waxa ka dambeeyo dhan aan ku aadinayaa harfi ubucleyda marka aan soo saarayo qaabka ayaa u sameynaya xarafka L oo kale xarafka I halkaas aan kaga aadiyey ka bacdina xarafkaas L meeshiisaas ayaa ku aadinayaa waxa ka dambeeyo dhan marka leenkii xarafka ubucleyda aan saaro leenkii dhexe markaan saarayna soo baxanaya la rabaa xarafka L waa qiyaastii halkaas kaga qiyaas qaadanaysaa xarafka E ka bacdina waxa ka dambeeyo dhan xarafka E ayaa ku qiyaas qaadanaysaa oo ku xiriiraysaa marka xarafka L ayaa ugu dhib badan inta kale meel looga aadiyo ay leeyihiin xarafka E oo kale halkaas ayaa looga aadinaya eediisa kale ama xarfi ubucleyda dhan meel looga qiyaas qaata ay leeyihiin meeshaas in madaxa inuu soo saartid waa muhiim leenkaas dhamaantood waa in madaxa u soo wada saaraa oo meel dhaxa aan ka laaban dhamaantood madaxa ayaa u soo wada saaraya leenkaas korna waa in ka wada simaa oo korkaas markii leenkii kor laga saaro waa in dhamaantood korka ay ka wada sinmaan oo leenkii kor si uu soo baxo waa in ka wada sinmaan xeerka xigo waa xarfihii waaweynaa meeshooda dhexe ayaa ku aadinaysaa xarafka E oo kale markii uu capital yahay markuu weyn yahay meesha dhexe xariiqa uu ku leeyahay ayaa xarfi ubucleyda dhan ku wada aadinaysaa xarfi madaxleydana meeshiisa ugu sarreeya ayaa gaarsiinaysaa
xarfiga ubucleyda dhammaantood halka waa inay ka wada silmaan leenka inta waa inay kasoo qabtaan xarfiga madaxleydana waa in ay soo wada degaan xeerka kan wuxuu ka turjumaa marka xarfaha waaweyn meesha dhexe ayaa kaga aadinaysa xarfaha ubucleyda xarfaha madaxleydana waa la samaysaa meesha ugu sareeya uu gaari kara xarafka kabitaalka ayaa xarfaha madaxleyda la samaysaa xeerka xiga waa xarafka y markuu kabitaal yahay xarfihi hore waaweynka ayuu ku xeer yahay oo halka ayuu kaga aadayaa xarfiga ubucleyda kaga aadayaan laakiin markii xarfaha hooso halka madax ayaa usoo wada saaraysaa xarfiga ubucleyda wixii kor aaday oo dhan laakiin xarfihii lugleyda dhammaantood waa soo wada dejinaysaa halka markaa madax usoo saartid dhammaantood waa in ay halka ay ka sinmaan xarfihii madaxleyda xarfihii lugleyda aan dhehe waa in halka ay ka wada sinmaan oo xarfaha lugleyda yacni waxay ahaayeen 5 xaraf ayay ahaayeen xarafkii g markaa qoray asigana waa in la soo simaa xarafkii g oo halkan uu ku soo aadaa xarafkii t asna in la soo simaa oo halkan uu ku soo aadaa intana madaxa waa in soo wada saaraa xarafkii q asigana waa in aan la soo simaa oo halkan uu ku soo aadaa xarafkii y oo hadda qoran asna waa in la soo simaa qaabkan markaa ayaa u yeelaysaa dhammaan xarfihii lugleyda oo idin xarafkii j asigana waa la mid asigana waa kusoo aadinaysaa halka inuu kusoo aado ayaa la rabaa qaabka ay u samaynaysaa xarfaha usoo wada samaysaa jumladiina iyadana sidaas oo kale ku barbaro si ay u wada sinmaan xarfihii ubucleyda korna kuwii madaxleydana sin hoosna leenkaa soo wada saar kuwii lugleydana hoos waa in ay kasoo wada sinmaan qaabka uu sameeya xarfihana korna ka wada sin hoosna wixii sinmaya oo dhan wada sin leenkana soo wada saar wixii soo degayna leenka halka usoo saar intaa kaleeto ushaana soo daadaji intaa qoraallo badan kasoo samey buugaaga caadiga adigoo ku qorayo waxaa idin soo gudbinaya qore Maxamed Cabdalla Waasuge wixii faahfaahin ah waxaad igala soo xiriiri karaysaan nambarka aan qorayo waa inoo cashirka xiga haddii uu eebbe idmo